MSSات فرشة عنك الصومالي ديو هاد توسي وعنا هاد توسي وعنا so anko if you are a Somali you are so hefty individualistic rugged crafty and merciless so waraninka walaalka oo agtaada oon dhiminayo waraa adiina waxaad ku socotaa gaariyaasha raaxada waraa you are so hefty that means you are so proud brother in front of the other people wax yar markaas lahaato yani hataa dadka salaanta taa kugu dhibaysa waraa so arrogant you are so arrogant so your person has tahay who so again merciless rugged the hadana waraa you are so crafty kan waxa laga keenay malayna skilled ma laakiin nowadays laakiin zamani dalada very strong had the hump of the camel the hump of the camel drought lagu tiragalay waa very kala the society are very tough these are signs of toughness meeshii raacay waraa waraaka hera meesha mara qarqo warxoolahan iyo waxa la dhahay irjir urgigeeda la weyn ma qashanad irjir urgigeeda had urgigeeda la weyn wara you are riding I mean a very expensive bicycle you are driving a very expensive car in front of a poor society as a poor neighbor isilali dawra selfishnimada meel iska keentana naqaan weyde bala iskaga dhigin wara ana waan qana xabad wara marka saayay soo fiiriso waqti soo fadhiisto waa igu joosanaysa maskaxda ka hada shay maraa qarkood jumcada la joogo laakiin la soo cafiid wara waraay salaam ma waraay MSSات farshaxanka Soomaaliyeed iyo توسي وعنا وريا سلام دنا ينفعلنا لكن dadka loo naxariisto ra abartaan loo naxariisto don't be so arrogant don't be so arrogant and don't drive waqtigan hadda la joogo don't drive an expensive car in front of your neighborhood who is so poor bro ديسرا فانتشروا في الأرض سورة الجمعة الآخرين وأغنتنا هم لنا سورة الكهف الله سورة الكهف كاف هي عين كاف هي عين صاد لازم معنا إلهي باقرنا لكن أنت تقهرت هذا تزليه طلعوا كوديبي لما ده ماركت الرين يا ذهب كورين لمن كورين بلا بوت وحلا مرة بدي قال سلام